Somali banahay anigu Somali banahay ma qansaqsagi adalada saxtaayo sawdkayga oruna si cad baan sheegaa Somali banahay loo saxiixay gobonimo Somali banahay aqsuubani sharaf rabbigay isiyaan dadka kaga sareeya Somali banahay loo saxiixay gobonimo Somali banahay aqsuubani sharaf rabbigay isiyaan dadka kaga sareeya hagaag madaxweyne waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa in aad xaaladda deegaanka iyo dalkaba si guud aad markaas nooga warbixiso. bismillaahir rahmaanir rahiim sidaad la socotid maanta xaaladda siyaasadeed ee deegaankeenu waa xaalad xasiloon wax nabadgelyo la'aan kama jirto dhanka nabadgelyada oo siyaasadda saameysa wax isqabqabsi kama jiraan oo deegaan ahaan xisbiga talada hayo kale marka deegaanasha siyaasadeed wax lagu cabiraa waa kuwa dhinaca kale waxaa muuqata oo aragtaa furfurnaansho siyaasadeed iyaduna oo soo kordhay tartan xor ah oo maaragtay isaguna soo kordhay asxaab fara badan oo maalin dhaweytay shirar galaya kala afkaara xisbiyo la sameynayo kii u dambeeyay ee lagu sameeyey ADF xisbiga bahaysiga xorriyadda iyo dimuqraadiyadda oo dirraba lagu aasaasay xisbiga ONLF oo isaguna goday shaqadiisa ku qabsaday dhaqaqiisina dhammaan deegaanka ka bilaabay marka guud ahaan waxaan galay marxalad ka bedelantii hore oo tartan siyaasadeed iyo asxaab iyo siyaasad xadaarad ku saleysan maaragtay loo gudbiyaa muuqda waana arrin aad iyo aad arrintaasi u fiican oo u wanaagsan shacabkeenu uu ku hamiyay runtii balse waxaa loo baahan yahay in la maareeyo oo aan arrimaha soo kordhay wanaagii nusqaantoodana inaan iska ilaalino waa wax maartay u baahan in la xoog la saaro مثلا با maxaa soo kordhin karo nusqaan hadii la yiraahdo marka tartan bilowdo maadaama bulshadeenu ay tahay bulsho asaaskeedu qabiil yahay waxa soo kordhin kara in tartanku uu ku saleysnaado qabaa'il dhabahanna taasi way burburinaysaa deegaanka dantii Soomaaliyeed iyo maanta xaaladda Itoobiya ay mareysana kama turjumayso danaheena maanta qoomiyad baa loo shaqeeyaa qoomiyad baa loo tashanaya waxaa la rabaa in fikradii kala duwan ay qowmiyaduhu asxaabta ka soo jeeda ay qabaan inay isku soo ururiyaan oo wixii dhexdooda ay tartanaan ay tartamaan wixii ay dalka ka rabaana si guud ay u raadsadaan marka arrintan nusqaanta Soomaalida ee qabaa'ilka si ayna u iman waxaan u baahanahay inaan ka fogaano wax walba oo arrintaas keeni kara waxaa kamid ah magacyada dadka qaybinaya waxaa kamid ah is urursiga ku saleysan qabiilka waxaa kamid ah si cad maaragtay iyadana in hayb loogu shaqeeyo tusaale soo qaadan karnaa hadaan eegno magacyada hadda deegaanka Soomaalida la deegaanka Soomaalida la maxaa loo yiri deegaanka Soomaalida maadaama Soomaali ku noosha hal qabiil kuma nool Soomaali dhan baa ku nool marka hadii deegaanka Soomaalida la yiraahdo magac kale meeshii la keeno dadka aan magacaas raaliga ka ahayn iyaguna waxay ku qasbanaanayaan inay magacyo kale ay samaystaan taas midnimadii Soomaalida way weeqaysaa arrin marka cid lagu ceebeynayo ama dagaal lagu gelayo ama dana siyaasadeed laga leeyahay ma marka la leeyahay waxa inaga daaya waa maslaxa guud oo Soomaaliyeed weeyaan inaga daaya wixii shacabka qaybinaya kooway taas waa marka waxyaalaha qaybinaya kamid tahay waxa kamid oo kale waxyaalaha qaybinaya iyadoo magacaba aan la sameeyay magac qabiil aan lagu hadlayn haddana is ururin iyaduna ku saleysan qabiil baa jirta talada hadda taa dulmadiid baan ahay talada waxa u jeedaa aniga mooyee inta kale oo dhan waa dulmadiid dadka dulmi ku dhaco dhan baa dadna dulmi ay wadaan nidaam baa dulmi wada dadna dulmiga diidan yihiin cid gaar oo dulmi ku dhacday
oo deegaanka joogta ma jirto haba yaraatee marka aad tiraahdo dulmidiid baan u ahay waxaa lagaa rabaa inaad ururiso dhammaan wixii dulmi diidana haddaad laakiin taa dulmidiid baan ahay oo aad hayb gaara meel ku urursato xag jir qabiil baa tahay kama duwanid kan magaca qabiilka sida bilcadaanka u soo qaatay kama duwanid isku daatiin waad ka farsamo badan tahay marka in waxyaalaha noocaas oo kale ah ee xag jirka qabiilka ah ee muuqda deegaanka laga daayo waan ku talinaya shacabkuna uu ka taxadaro shirar qabaa'il waa bilcadaan ah jira iyaguna kuwan waa kuwa magaca asxaab samaysanaya wey kuwo qabaa'il oo waaweyn baa jira oo socday haddaad tidhaahdo beesha dir baa shiraysa ma waxaad ujeedaa markaa beesha daaroona ha shirto taawiyana ha shirto ma garanaysaa kale raxweyne ha shirto macnaha ma wixii 4.5 iyo wixii Soomaaliya ka jira wixii halkan la keenay marka aad u socota marka waxaan rabnaa siyaasad ku salaysan fikir inay timaado sidaa daraadeed cidda waxa u socotaa waa siyaasad weey iyo tartan haddaad xukuumadda meesha ka dhisan diidan tahay kolka ugu horeysa magac aan dadka qaybina isticmaal marka ku xigta in gaaraho cid gaaraho isku haybtiin ha urursanina in kula mid ah jirto xukuumadda diidan oo fara badan ma inta ururso marka xisbi siyaasadeed oo hadaf leh oo xukuumadda waxay ku diidan tahay dadka u soo bandhigay inaan samaystaa raba inaan hawsha u gudbinaa waa muhiim sababta aan hadda arinta uga sii taxadarayna maxay tahay walaas hadda jira ma jiro waxa weeye inaan ku noqono 1991 marabadi 1991 Soomaalidii nin walba calan buu qaatay deegaanka 14 urur baa la sameeyay oo qabaa'ila xagee maxay taas keentay waxay keentay inta la qaybsamay in cadawgii ka faa'iideystay dagaal dheer la galay maanta raadku inagu rabeen aan ognahay fikirka maskaxda arinta ka dambeysay ee keentay haddii maanta sii socoto waxa imanaysa iyaduna doorkan dagaal ma dhacayo dagaal ballaaran oo 30 sano soconaya ma dhacayo waxa dhacaya deegaanka lagu kala tagaya marka burbur deegaan baa dhacaya burbur deegaan dana siyaasadeed cidda wadata inay dadkii ay maamul lahayd burburiso marka sax ma taas waa khalad taas marka waxaan u baahanahay midnimo Soomaaliyeed waxaan u baahanahay in dadka deegaanka jooga oo dhan gacmaha isqabsadaan waxa ka maqan xaqooda iyagoo isku duuban ay doontaan sida deegaanada kale dad maanta inagu kala diima amaniin isku diin baana isku af baana isku luqad baana marka waxaan haysanaa fursad aanan u baahnaynba wax ina mideeyo oo kale waa ina raadsanin wax ina mideeyo haysanaa Soomaali baa leeynida adu Soomaali baa tahay anigu Soomaali baan hay maxaa inagu kalifay marka inaan ka daadegno Soomaalida hadii hoos looga dayo Soomaalinimada halis baa soo socota looma baahna waa mowqifka xukuumadda iyo mowqifka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida weey labadaba waa taaway waxa kale oo taa ku hoos jirta soddonka sano ee ka hadlaynay dulmiyaa dhacay dil baa dhacay xansuuqyaa dhacay waa inay noo kala socnaadaan dadkii dulmigaas iyo dhibaatadaas la sheegayo qaybta ka ahaa iyo dadkii diidanaa waxaad moodaa in isdhex yaacday hadda waxaana keenaya qabiilka weey marka mabda laga tago qabiilka amanaya hay bay noqonaysaa arintaasna waxay baabi'inaysaa taariikhdeeni bay baabi'inaysaa marka taana in laga taxadaro waa muhiim guudaan arrimahaas ayaa hadda maartay waxa ugu sii muhiimsan inaan ka taxadarno u baahan deegaanka sida kale waddanku aad buu fiican yahay waan ku faraxsannahay dadku inay si xora siyaasadooda u sheeganayaan si xora ay u socdaan dibadaha ka imanayaan ururada rabaan ku biirayaan waa wax wanaagsan soo kordhay aad baan ugu faraxsannahay sidee lagu midayn karaa mudane madaxweyne bulshada deegaankeena Soomaalida ku dhaqan shacabka waxa lagu midayn karaa marka la leeyahay shacabka la mideeyo shacabka oo dhan intay wada ururaha noqdaan ma marka mararka qaarkood macnaha midnimadu muxuu yahay su'aashu midnimo macnaheedu waxa weeye Soomaali ahaan shacabku wixii dantiisa uu ka midoobi karaa ka midoobo wuxuuna ka midoobi karina ha ku tartamo waxa laga midoobi karaa iminka hadii la yiraahdo dadka Soomaalida ee deegaanka ku nool waa inay federaal ka helaan xaqoodii cid baadiye Soomaaliya urur gudoon ha noqday hadii la yiraahdo hantida deegaankanaga iyo maamulkanaga aan wax banaanaano ciidiisa ka taajir Soomaaliya waxyaalo waxa jira mabaadi marka iyo masiiri oo laga midoobi karo yaa madaxweyne noo noqonaya
yaa wasiir noo noqonaya sidaynu dawladda ku wadnaa sidaynu maamulka u dhisnaa bal isku diidaya afkaar baa jirta kala duwan sida wax loo qiimeeyo kala duwan tahay annagu waxaan u aragnaa wax fiican baan sameeynaa qof baa wuxuu arkaya wax xun baad sameynaysaa taasoo kale yaan la isdilin lagu tartamo si xor iyo xalaal ah lagu tartamo su'aashu marka mideyntu waxay ka imanaysaa kow in tartan xalaal iyo jiro cid walba ay xayndaabka had uu ogol yahay kaasi ay ku dhaqanto oo anigu waxa aan rabo hadaan waayo waan baabi'inaya wixii inay noqon ama dawladda noqoto ama xisbi kale mucaarad ha noqoto taas waa lagu midoobaya the rules of the game sharciga lagu wada ciyaarayo siyaasadda in lagu heshiyo taasaad midnimo keenaysa laba in cid walba mas'uuliyad ay qaadato in laga fogaado waxyaalaha dadka si bilcadaan ay soo horkeenayaan la ogyahay waxa kamid ah qabiilkadii Soomaalida waa ognahay dad kale oo gaar ah qabiil baan marka haddaad aniga oo reer hebela maanta magaalo hebla cid aan aniga hay kuma noolaan sa tiraahdo de inaad isku dhacaysaan qabiilka dad kale oo dadkii isdilayaan way caddahay marka in si mas'uuliyada loo xisaabtamo qof walibana waxa isagu uu aaminsan yahay iyo wuxuu maskaxdiisa ku jira kaliya ma aha waxaan saameynta uu keenaya muxuu yahay inuu ku fikiro weeyaan in laga fogaado marka arrimaha waa tii hore ka hadlayay midnimada waxa keenaya in laga fogaado wixii hore ka hadlayay madaxweyne horay deegaanka Soomaalida maadaama aysan iga jirin dimuqraadiyad iyo markaas xurriyatul qowl taas oo dhalisay in guud ahaan hal xisbi deegaanka sanadihii la soo dhaafay oo markaas ka taliya doorasho walbana oo markaas galo balse waqti xaadirkan taasi ay isbedelkii dhacayna oo markaas dimuqraadiyad iyo waxaan ku dhahay xadaarad kale oo cusub markaas u watay deegaankeena Soomaaliduna markaas ay ku soo biireen in xisbiya aad u fara badan oo doonaya waqti xaadirkan in ay markaas doorashada galaan bal sidee markaas doorashadan deegaankeena ka dhici doonto u noqon kartaa mid si nabadgelyo ah u dhacda waxay u dhici kartaa dalka guud wax ka dhacay isbedelkaas baa horta xaaladda saamaxay dawladda federaalka ee hadda dhisay waxa ay si ballan qaaday in tartan xor iyo xalaal ah oo siyaasadeed la galayo oo laga baxayo wixii hore waa arintaas waa in la soo dhaweeyo cid walba mas'uuliyad baa ka saaran tartan xor in la sameeyo waa tan ka hadlay marka si tartankaasi uu noqdo mid xalaal iyo xor ah waa in shuruucdii lagu heshiyo iyo qawaaniintii lagu heshiyo wax baartay heshiis lagu yahay waa inuu jiraa taas haddii la ilaaliyo dhib weyn ma jirto xukuumadda deegaankuna sidoo kale way ka go'an tahay annaga Soomaali ahaan deegaanka waxaan wadana in shacabku inay helaan codkooda dad matala inay helaan ku hadlaan keenaan taasa maaragtay inoo dana laakiin taas inay ku timaado way qaab tartan siyaasadeed oo haddii aad dadkii si kala qaybisaba oo markii horeba aad inba meel aad dhigto oo tiri kuwana tiri yaad maamulaysa xukumaysa hadda matalan ba deegaankan markii hore la sameeyay waxa loo bixiyay magaca deegaanka Soomaalida xagee loogu bixiyay magaalada Gudub lagu bixiyay yaa u bixiyay ururka marka talada hayay oo nalafa wuxuu ugu bixiyay waxa u muuqatay inay suurtagal ahayn magaca waxa ka hooseeya inay wax ku maamulaan maanta hadii ay xukunka qabtaana magaca ka duwan ma bixin karaan waa hadii ay rabaan inay maamulaan deegaanka Soomaalida xaqiiqo weeyaan hadda taa ogtahay marka inaad tiraahdo taa hadhow ay sabab doona markay xukunka qabanay hadda horta aynu meesha ku qabano sii marno oo ah qaybin iyo cadifad iyo xaasiyo way ku dhaawacaysaa waxay ku dhaawacaysaa cidii aad maamul lahayd waa sii qaybisay waxaan rabnaa in dadku ay taa fahmaan ururada nabadgelyada qaatay ee deegaanka ka dhaqaaqay iyo kuwii sii joogayba fikir bay leeyihiin dadka fikir bay u sheegaan fikirkooda looma diidin oo kuwa banaanka u samaysanaya marka fikirkooda mid ka duwan la soo jeediyo ama xukuumadda soo jeediso ama ashqaasa soo jeediyaan waa inay yeeshaan dulqaadkii inay ku qaataan ama ay kaga jawaabaan dhaqan waxaynu lahayn marka hadda ka hor dawladdu ninkii mucaarada ay disho mucaaradku ninkii fikirkiisa diida uu caayo ama aflagaadiyo labadaba loo baahna si xora qof kasta fikirkiisa u sheegto fikirka wanaagsan shacabka hadhu doorashada iyaga ku muujin doona ku yahay weeyaan taasaan u arkaa inay xal tahay ugu dambeyn midana madaxweyne maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan shacabka deegaanka bulshada deegaanka waxaan ugu baaqayaa tartanada
waddan ka socda si aan uga qayb galno tartarno aan loo baahnayn oo hooseeyana bilaabay taana waxaan ka wada ma aha macnaheedu kuraasiina ku tartamin xildhibaanadu way tartami doonaan kursi madaxweynaha loo tartami doonaa wasiirada loo tartami doonaa waa caadi waa dhaqanka siyaasadda ee Soomaalida qof meesha intuu fadhiisto iska fadhiyaya oo boqor ka noqonaya ma jiro duruufta maanta taageerna ma saamaxayso laakiin waxaynu ku tartamaynaa han noqdo aniga biyaha dawladda biyo kaga ficnaan lahaa biyaha sida dadka loo gaarsiinayo anaga kaga ficnaan lahaa dawladda dagaalanka maamul xumada aniga kaga ficnaan lahaa sugidda ammaanka aniga kaga ficnaan lahaa shaqo abuurka dhalinyarada aniga kaga ficnaan lahaa isu keenida bulshada dawladda waxa lagu tartamo ajendayaal lagu tartamo laakiin aniga oo reer hebela yaa sidaa yani reer hadii leeyahay waa wareer kursiga deegaanka Soomaaliya uu sareeya halkan aan joognana qof walba oo Soomaaliya oo deegaanka ku dhashay oo muwaadin deegaanka u dhashay yaa xaq u leh sharci qoran oo hadiga qaar ba arkay meelaha la badboodiyo la kursiga waxa lagu qaybsaday reer hebel baa lama oran xitaa xisbigan dhalilaha faraha badan leh hadda taladahay ugu ma qorda dastuurkiisa kursiga reer hebel baa gudoomiyaha xisbiga reer hebel baa uma qorno waxay ahayd qaab power sharing xilliga iyada ah la sameeyay in bay ahayd ee lama lahayn waligiin adduunkan kan jooga lama lahayn mustaqbal markaan ilbaxno waxan waa laga bixi oo laba qof oo isku hayb ah ama isku gobol ka soo jeeda yaaba labada ku soo haysan kara ilaa bulshada adeeg bay u baahan tahay laakiin hadda inta ka horeysa in iyadoo cadaaladii iyo inclusivity iyo balance la ilaalinayo cid waliba laakiin ayna meel cayimanin waa muhiim waa fikir xadaariya asli jahilki fikradii jiray iyo waxyaalaha aan soconayn maanta in dadka lagu wareeriyo dhalinyarada 30 sano haddana mustaqbalkooda madow ku galo cidda arinta aaminsan muxaafad iyo mucaaradba shacabka banaanka jooga way khaldan yihiin markaan saaleena waxaan ka hadlaynaa afkaarta khaldan ka hadlaynaa ururka xitaa kama hadlayno afkaar khaldan oo suuqa taala jirta afkaarta shacabka ka wantoobaan wax wanaagsan ma aha waan ognahay fikrada aan sheegay dib naga soo gaarayso anaga shakhsi ahaan naga soo gaarayso maamulaha naga soo gaarayso hagardaam naga soo gaarayso aflagaad naga soo gaarayso waan ognahay laakiin xaqa in la bayaamiyo waa lagu qasban yahay hebel baa caroomay iyo heblaaya ya qaylisa xaqa loogama leexan karo waa in sidii yahay loo sheego qofka taa diidayna waa in fikirka ka duwan isagoo aan ay tamin isagoo aragtan waxyaalaha uu kale hadda aad aragno waxa kamid ah fikir siyaasadeed lagu meel marin karo aragtan fikir siyaasadeed waxa lagu meel marin karaa inaad logic soo bandhigto oo sharaxaad keento oo sababta fikirkaasi uu ku fiican yahay aad shacabka soo bandhigto taana waa dhaqan iyo siyaasadeed oo aanan rabin hadda inuu maartay si socdo weeyaan dawladda halka joogtay waa ogaa waxay ka oran jirtay televisionka hadda anoo fikra aan xukuumad ahaan qabnaa jira yaa la caayaya ma cid la caayaya jirta ma siyaasi la caayaya jira ma hooyo la caayaya jira ma urur la caayaya jira maya fikirkaas qabtaan khaasan qabna baa la oranaya iyada saas laga rabaa intaasaan ku soo goobi lahaa madsanta Soomaali baanahay anigu Soomaali baanahay ma aqaan saxsaagi cadalada saxtaayo sawdkayga oo runa si cad baan u sheegaa kaga sareeya Soomaali baanay loo saxiixay gobonnimo Soomaali baanay aqsuubani sharaf rabbigay isiyaan dadka kaga sareeya